السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكن waxaan u hibaynayaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee aan ka mid ahay meel kasta oo ay joogaan. Waxaan rajaynayaa inaad iga gudoomi doontaan hadiyadan qiimaha badan. Dhalinyaranimadu waa nicmad Ilaahay na siiyay subxaanahu wa ta'aala oo ay tahay inaan ku xasuusano uga shukrino ugana xamdino waqti kasta. Waxaan nasiib leh qofkii ka soo gudbay da'dii caruurnimada ee caqligiisu yaraa welina aan gaarin da'da duqnimada oo tabartiisu iska yaraan doonto ku jira da'dii awoodda iyo firfircoonida ee dhalinyaranimada da'dii wax kasta ee qofka qalbigiisa ku soo dhaca uu sameyn karay oo ku dhaqaaqi karay waa fursad dad badan aysan soo gaarin oo aysan soo haleelin dad badan ay ka gudbeen oo aysan maanta haysan oday Soomaaliyeed oo aad ay u dhibtay da'da duqnimadu ayaa ku mahmaahay shalay oo aan tabar hay tala ma hayn maanta oo aan tala hayana tabar ma hay shalay oo aan tabar hayay oo aan awood lahaa tala ma hayn oo talada iga maqnayd maanta oo aan talo hayana tabar ma hayo oo tabartii iga maqan oday kale oo Carbeed oo isna sidoo kale duqnimadu ay dhibtay ayaa isna ku gabiyay alaalayta shabaab yacuud yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib shalay dhalinyarannimadeedii maalin may ii soo laabato aan u sheego duqnimadu waxay ugu sameeyay dhibka iyo mashaqada duqnimadu ugu hayso aan ku dacweeyay hal mar may dhalinyarannimadeedii ii soo laabato da'da duqnimadu waa dadka la nool aysan farxad iyo raaxo dareemin hadii aysan dhalinyaranimada ku soo shaqaysan waa dadka la nool odayaasha ay hadii aysan dhalinyaranimada ku soo shaqaysan waxa ugu badan ee qalbigooda ku soo dhacay ay tahay kelmadda laytani shalaytadeedii waxay ka shalayaan wax badan oo inay soo qabsadaan ay ahayd dhalinyaranimada oo aan u soo qabsoomin maanta aysan qabsan karin wax badan oo inay bartaan ay ahayd oo aysan dhallinyaranimadii ku soo baran maanta aysan baran karin waxay arkaan wax badan oo inay haystaan ay ahayd dhallinyaranimadoodii aysan soo shaqaysan maanta aysan shaqaysan karin sida darteed waxa ugu badan oo ay ka fikiraan oo qalbigooda ku soo dhacay waa laytani halka dhalinyarta waxa ugu badan qalbigooda ku soo dhacay ay tahay saafcalu waan sameyn doona berri ayaan sameyn doona I will do tomorrow I will do next week I will do next month I will do next year waxaan istusnaa inaan haysano waqti dheer oo aan ku qabsan karno waxaan istusnaa inaan haysano jaanis fiican oo aan wax badan ku qabsan karno laakiin su'aashu waxay tahay sanadka dambe iyo berri iyo saa dambe ayaa noo ballan qaaday inaan gaarayno jaaniska dhalinyaranimada maanta ayaan haynaa berrina ma hayn doono maanta ayay tahay inaan uga faa'iideysano sida ugu wanaagsan aan uga faa'iideysan karno maanta ayay tahay inaan ku bixino waqtigeena waxa ugu fiican ee aan waqtigeena ku bixinaa inay noqoto waxna anfaca aakhiradeena iyo adduunkeena waxayna la gudbeen inaan qaadano dardaarankii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii iqtanim khamsan qabla khamsin shan intaysan kugu iman shan ka faa'iideyso waxa ugu horeeyay shabaabaka qabla haramika dhalinyaranimadaada ka faa'iideyso intaan duqnimo kugu iman marka jaaniska dhalinyaranimada ee qaaliga ah ee nicmada weyn ah maanta ayaan haynaa waxa inala gudboon akhwaani fillah inaan dhallinyaranimadeena aan ku bixino waqtigeena inaan ku bixino waxaan u ayno mustaqbalkeena adduunyo midkeena aakhiro inaanan ku mashquulin waxaan eedi doona mustaqbalkeena aakhiro midkeena adduun waxaan hadda ku mashquulno ayaan ku duqoobi doonaa waxaan ku duqoonana aan ku dhiman doonaa wixii aan ku dhimanana waa nala soo saari doonaa man shabba ala shay'in shaba alayhi waman shaba ala shay'in mata alayhi waman mata ala shay'in bu'itha alayhi qofku wixii uu ku weynaado ayuu ku duqoobaa wixii uu ku duqoobana uu la dhintaa wixii uu la dhintana waa lala soo saaraa marka maanta ayaan haysanaa jaaniska berrina ma hayn doono jaaniska fursadda dhalinyaranimada aan uga faa'iideysano akhwaani fillah sida ugu wanaagsan aan uga faa'iideysan karno waxa ugu munaasabsan aan ku bixin karno aan ku bixino wax adduunkeena iyo aakhiradeena anfaca aan ku bixino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh